ciidamada booliska ee gobolka Salaar ayaa markaasi waxay gacanta ku soo dhigeen gacan ku dhiigleen magaalada Caynaba dil ka geystay 3 cisho ka hor sida ciidamada booliska ee deegaankaasi sheegeen gacan ku dhiiglahan ayaa waxa markaasi ka gacan siiyay odayaasha deegaanka oo markaasi gacan ku dhiiglahan gacan weyn ka geystay sidii loo soo qaban lahaa ciidamada booliska oo howlgal kaliya sameeyay ayaa hadaba waxa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Salaar waxaanu ka warbixiyay howlgalkan adag ay markaasi 3 maalmood ku jireen soo qabashada ninka dilka ka geystay magaalada Caynaba Jimcihii hadaba taliyo arimahaasi ka hadlayna waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahad leh maanta oo bishu tahay labadii bishii labaad waxa ciidanka booliska gobolka Salaar ku soo guuleysteen inay soo qabtaan eedeysana gacan ku dhiigle Mursal Jaamac Cabdilaahi kaasoo habeenkii Jimcihii bishuna ay 30 ahayd dilay marxuum loo oran jiray Allah u naxariistee Cabdi Hurre Xirsi gaani eedeysana wuxuu wax dilay 30kii bisha habeen Jimcaha buu wax dilay wuxuu teerigareeyay inuu fakado ciidanka booliska gobolka Salaar isagoo fulinaya amartii taliyaha ciidanka booliska wuxuu howlgalis daba jooga kuwada ilaa uu soo qabanayay eedeysanaha howlgalkaas wuxuu qaatay muddo 3 casho waxaan halkan uga mahad celinayaa taliyaha xigeenka booliska gobolka Salaar taliyaha CID-da saraakiishii kale saraakiil xigeenkii dableydii iyo alifleydii suurtageliyay inaanu eedeysanahaasi fakanin 3 casho buur iyo bandhaankii ay tahay ka baadi doonayay sida aynu isla la wada socono gobolku wuxuu badan yahay buuraleyna raadku kama muuqdo howlgalku wuxuu 3 casho ku gaaray oo ciidanka hakiyay iyo bulshooyintii gobolka Salaar ee ciidanka la baadi doonaysayba buuraleydaasi waxa kale oo halkan uga mahad celinayaa gudoomiyaha golaha deegaanka isla markaana amaayirka degmada oo saacad walba na garab taagnaa marnaba aan dheegayga aanan ka waayin waxaan kale oo mahad celinayaa gudoomiyaha gobolka Salaar waxaan leeyahay bulshooyintii kale ee gobolka Salaar ee waxa weeye ina mar walba nala socotay haddii ay baadi doon tahay haddii ay taakula tahay haddii ay sheegis tahayba waanu mahad celinayaa waxaan kale oo mahad celinayaa gaar ahaan cuqaashii uu ka dhashay eedeysano ganacsatadii odayadii eedeysanaha waxa lagu soo qabtay ceelal baa lagu soo qabtay ceelal Caynaba waxa u jirtaa 180 kilomitir halkaas ciidanka booliska ugu tiigsaday martaas uu ugu tagay ilaa xalay gudooday baanu hayn ilaahay baa nagu guuleeyay waxaan halkan taasi uga dirayaa eheladii marxuumka ka baxay waxaan leeyahay ilaahay samriye iimaan ka siiyo waxaan kaloo leeyahay waa mahadsantii sidii wanaagsaneeyay gobonimada lahayd ee ciidanka booliska u barbar taagnaydeen iyo bulshooyintiina kale gobolka Salaarba ee ay u samreyseen waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa uqaalweyntii gobolka Salaar oo iyana aan la hilmaami karin doorkii ay ku lahaayeen howlgalka ciidanka booliska filiyay waxa halkan yaala qorigeeda sunu sitay booshkii dreiskii kaasoo ciidanka booliska ku soo qabtay isagoo ridaya oo uu doonaya inuu ku baxsado ayaa ciidanka booliska gacanta ku soo dhigay wariyo subar galay CBA TV magaalada Hargeysa farxadda iyo wadajirka qoyskaagu waa adeegsiga xawaaraha sare leh ee internetka Telesom Fiber ku xooji ganacsigaaga internet xawaare sare leh oo aan kala go'ayn shirkadda Telesom waxay casriyeyn kuugu samaysay internetka fiberka guryaha iyo ganacsigaba si aad u soo gashato fiberka Telesom booqo xarunta kuugu dhow amba ka dalba website-ka telesom.com sidoo kale waxaad garaaci kartaa lambarka xidig 121 Evergees Telesom Fiber waa internetka ugu xawaaraha sareeya dalka